بسم الله الرحمن الرحيم كسو دواada tutorial-keeni aan ku baranayna Excel-ka casharkeeni sida loo xisaabiyo ardayda grade-keega waxaan maanta ku daraynaa xisaab kale oo ah ardayda haddaba waxa la weydiiyay waa inaad sheegtaa ardayda inta baastay iyo inta uu report-keena oo doonayno inaan sheegno inta arday ee baastay waniga sheegna ABCD bay keenay marka hadda waxaan eegnaa inta baastay iyo inta ee keento waa inta keento waa inta marka waxaan eegaynaa darajadan hadana qaybtan u sameeynaa waxaan roonaynaa pass or failure baan halka ku qoraynaa inta ardaydii baastay ama fail garowday ayaan formulada u sameeynaa marka waan soo saari karaysaa amba kuwan kale iska deyn kartaa waxaad ku sameysan kartaa kaas oo kaliya marka ardayda waxaan doonaynaa maanta inaan halka galino oo aan formulada ku soo saarno ardaydeenan inta baastay qof walba ugu hor qorno hebel وكان state B buu keenay kabacdina baas oo nagu qorno miga sida Cabdi Maxamed Cali oo kale imka 10 baas marka state adu keenay ardaygaas B buu keenay marka muxuu sameeyay uu baas garoobay mise uu fail garoobay marka u saasan oo doonayna inaan formuladina u gelino markaas ugu horeysa halkaas aad imanaysaa markaas halka soo dhaweeyo halkaas aad imanaysaa marka halkaas hadda doonaysa inaad baas iyo failed ay ardayda darajadooda marka ardaydu qaybtan grade-ka waa iska dhigin kartaa waxaad ku qori kartaa oo baas iyo failed kaliya marka taasan formulada maanta gelinay marka halkaas aad kala garanaysaa mar walba waad kala garanaysaa waxaana ugu horeeyay shuruud ahayd mar kasta oo gelinaysid formula ama excel xisaabaad kaga shaqeynaysid if walba aad qabanaysaa if markaad qabatid waxaad gelinaysaa maadaama condition tahay if tahay oo haddii aan leenahay dib aad oranaysaa bracket baad furanaysaa marka bracket furtid waxaad oranaysaa haddii weeyaan totalkeena ardayda markaas soo kala garayno ay ka weynaato marka ardayda totalkeegaas uu ka weynaato konton markay ka weynaato konton biis markay ka weynaato waxaad tiraahdaa wuu baas garoobay baas baad ku qoraysaa baas baad halka ku qoraysaa hadduu konton ka sareeyo waxaasu koob iyo konton macallin keeno wuxuu sameynayaa baas hadduu 50 keeno macallin wuxuu sameynayaa baas otherwise marka la leeyahay waa kooma yadana otherwise haddii kale failed baad ugu qoraysaa file oo aad ugu qoraysaa yadana failed kaasna waxaad u sameynaysaa formulada yar buu ku soo qoray marka saas ah ku saxa kooma failed ka laba dhinac ka marisaa formulada halkaas saxina hortaas soo kala garanaysaa qaybtaasna semicolon kaasad ku qoraysaa marka saa labada dhinac ba semicolon ugu qoratid bracket baad ku xiraysaa haddii kalena enter baad siinaysaa control plus bracket baad oranaysaa marka saa tiraahid kabacdina enter ay siinaysaa waayo hal bracket oo kaliya tablay marka formuladeeni maxay noo noqotay pass bay noqotay waad sheeganaysaa inuu baasay ardaygan iyo in kale waa 80 waa aad buu baasay kabacdina halkaas soo qoranaysaa halka afar geestaas soo jiidaysaa hal mar ardayga koowaad mad ka shaqeynaysaa haddii aad arday fara badan macallin ka shaqeynaysid kabacdina marka halkaas aad qabtid waa soo jiidaysaa ilaa ardayga ugu hooseeya ayaad soo dharaagareynaysaa marka afar geesta ku noqdo wuxuu ku tusayaa ardayga fail garoobay iyo ardayga baasay iyo ardayga fail garoobay intiiba ku tusayaa ardaydeeni waad sheeganaysaa ardaygaas imika koob iyo kontonkaas uu baasay 49 ardayga keenay muxuu ahaa marka hore f imikana uu failed garoobay uu dhacay 0 ka keenayna waa failed kan 0 kalena keenay failed kan 100% keenayna waxa weeyaan baas sidaas loo sameystaa marka doonaysa inaad sameysatid ardayda baastay iyo ardayda dhacday ee doonaysa inaad table-kaaga hore u bad ku daraysaa qayb kamida haddii kale grade-kan meesha inta ka saartid ayaad baas iyo failed ku qoraysaa kabacdina grade bay ku qoraysaa sidaas loogu sameystaa ardayda loo xisaabiyo ardayda baastay iyo ardayda dhacday كلاس كاغا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته